halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com. mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalka Djibouti oo lagu magacaabo Raad ayaa warqad furan u diray ururka midowga Afrika. war-saxaafadeedkan ayay ku sheegeen baahida loo qabo doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacda Djibouti iyo sida aanay xukuumadda Djibouti aanay u hirgelinin codsigii kormeerayaasha midowga Afrika ee doorashooyinkii kala dambeeyay ee dalkaasi ka dhacay ku aadana. haddaba waxaan qadka taleefanka kula hadlay gudoomiyaha xisbigaas oo horena uu ahaa duqii hore ee caasimadda Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Keelle waxaanan marka hore weydiiyey bal waxa ay ku sheegeen war-saxaafadeedkaas oo faahfaahsan. warqadaan soo saarnay waxaan la xidhiidhnay midowga Afrika waxaan ku sheegnay in midowga Afrika kooxdiisa u qaabilsan kormeeridda doorashooyinka ee sanadadii 2013 2016 iyo 2018 ay sheegeen in madmadow badan iyo qaliilo badan iyo godolooyin badan ay leedahay qaabka ay u dhacaan doorashooyinka Djibouti. marka waxaan ka codsanay midowga Afrika hawshaasi ay hore u gashay ay ka codsatay Djibouti in hanaanka doorashooyinka ay dib u eegto ilaa hadda aanan dib loo eegin. marka waxaan ka codsanay in hanaanka doorashooyinka Djibouti uu nan ahayn hanaan lagu kalsoonaan karo, doorashooyin xor oo xalaalina ay ka dhicin la saxana wixii ay tilmaamtay midowga Afrika. waxaa la isweydiin karaa doorashadii muddo badan baa ka hadhsan, maxaa xilligan inaad hawlaan dhaweyn ka sii cabataan keenaya? marka ay tahay doorasho iyo hanaankeega ilaalada qaabka loo qabanqaabiyo waxa weeye muddo aad u kooban ayaa naga xigto 7 bilooda, waayo doorashadu waxay u baahan tahay in liisaskii la sii diyaariyo, waxay u baahan tahay in qaabkii oo dhan laga wada hadlo oo wixii dhibaatooyin dhaliila farta ay ku goday midowga Afrika iyo waxyaabahaan annagu farta ku godayno, waayo waxaan isxasuusinaynaa in 2014 heshiisaan taliska la galay lafdhabarna u ahayd doorashooyinka oonan si cadaalad u dhicin, si madax bannaan u dhicin, si xalaal u dhicin. marka waxaan rabnaa in la dayo dib loogu noqdo hanaanka doorashooyinka dalka ka dhaca oonan ahayn hanaan lagu kalsoonaan karo. arrinkan aad sheegaysaan waa arrin dawladda khuseeya, iyaga ma kala hadashan intaydaan baa cida dibaddaas la gaadhin oo ma tiraadeen waxaan baa inaga khaldanay sidaynu u saxnaa? waxa weeye annagu waxaan nahay dad xilkasa, dad dalkooga iyo dadkooga jecel, nabaduna ay ka go'an tahay ilaaladeeda, waayo waxaan ognahay ismaandhaafka siyaasadeed keeno qalalaase siyaasadeed. annagoo xilkeega gudanayna waajibkeegana eegayna ummadeeda iyo waddankeegana jecel nabadiisa iyo xasiloonidiisa ayaa horay heshiis waxaan ula saxeexanay 2014 taliska waa uu nagaga baxay. hadda waxaan muddo 7 laga joogo aan la xidhiidhnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda oo wax jawaab aanan noo soo tabinin. taas ayaa keentay inaan hadda la xidhiidhno midowga Afrika, waayo marka doorashooyin la diyaarinayo waqti bay qaadataa in dhinac walba laga tafaqyatiro oo la isla dayo. laakiin diyaarinimada waxaa ka horeysa soo ma aha inaa iminka ka wada fadhiisataan oo xaaladda isla eegtaan oo warqadaha aad u direysaan ciidaha idinka baxsan inta ay saxaafadda u marinaysaan intaad joojisaan idinku gudaha ka wada haashaan soo ma aha oo marka hore taa ku daydaan? waad ogtahay dawlad waad la xidhiidhi kartaa. annagoo xilkeegii gudanayna, waajibkeegii gudanayna, dalkeega iyo dadkeega jacaylkooga muujinayna ayaan warqad u qornay dawladda, waan la xidhiidhnay, wax jawaaba noomay soo celinin. taas ayaa keentay inaanan lagu kalsoonaan karin dawlad baal marayana dastuurka qodobkiisa 4 oo sheegaya in awoodda ay leeyihiin shacabku ciday dooraanna ay dooran karaan si madax bannaan oo xor ah oo xalaal ah. haddiina looga soo jawaabi waayey waxaan garanay inaan u gudubno meel kale oo ah midowga Afrika. dawladdana waad la xidhiidhi kartaa wasaaradda arrimaha gudaha inaan warqad dhignay, ilaa haddana kula hadlayo ayna noo soo jawaabin iyadoo ay ka soo wareegtay muddo 8 maalmood. so xisbiye kale kama jiraan Djibouti? maxaa idinka ku koobay uun cabashadan may xisbiyadii kale? waxa weeye annagu dalka ayaan dhex joognaa, cabashada wixii aan arkayno doorashooyinka ku saabsan waa waajibkeega siyaasadeed, waa shaqadeeda weeyaan, waayo niman siyaasiyiin oo dalkii dhex jooga oo dantii shacabka ilaalinaya baan nahay. taas ayaa keentay inaan dawladda aan la xidhiidhno oo warqad u qorno oon shacabkii codkiisa iyo rabitaankiisa aan ka hadalno doorashooyinka fooda nagu soo haya ee dalkayaga ka dhici doona dhawaan. kaasi waxa uu ahaa duqii hore caasimadda Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Raad
oo u waramayay BBC da waxaa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan